بسم الله الرحمن الرحيم سيدا الله سعوتان أفرلاتنكي بشان مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية يحل ساري إنا النقضو إرقاقي سقاركا arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha isbuucii la soo dhaafay iyo maalmihii la soo dhaafay waxaan ku jiray inaan ogaado xogta dhabta ee la xiriirta abaaraha iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo xaalkeeda sida uu yahay waxaan kulamo kala duwan la yeeshay hay'adaha dawladda ee kala duwan iyo wasaaradaha arrintan ku howlan gurmadka guddiga loo saaray gurmadka abaaraha iyo qaramada midoobay iyo safiirada beesha caalamka ku wada deeqahana siiya intaba kulamo gooni ayaan la yeeshaan u ogaado xogta dhabta ee ku aadan dhibaatada inta ay la eg tahay xajmigeeda iyo sidoo kale deeqaha la hayo inta ay la eg yihiin iyo heerka uu maraya gurmadka inta inaan wax ka ogaado waxaan rabaa shirkan jira inaan uga hadlo warbixinadaas inaan uga hadlo si kooban koow marka ugu horeysa waxaan xogta aan hayna ay tahay 6 milyan iyo 100 kun oo qof oo Soomaali ah inay halis ama saameeyeen abaaraha ay saameeyeen 6 milyan iyo 100 kun oo qof oo Soomaali ah oo ku dhow kala bar dadka Soomaaliyeed in abaaraha ay saameeyeen inta gargaarka la gaarsiiyay oo gacan gargaar ay gaartay waa 2 milyan iyo 800 oo kamid ah dadkaas 6 milyan iyo 100 ka ah waaye waxa aad iyo xaaladooda u daran tahay 280 kun oo dadkaas kamid ah oo la dhihi karo xaaladooda aad iyo aad ayay u daran tahay 2 milyan 800 ee la gaarsiiyay gargaarka waa dadkii ugu darnaa ee 6 milyan iyo 100 kamid aha 684 kun ku dhawaad 700 kun oo qof ah guryahooda ka qaxay oo u qaxay magaalooyinka waaweyn iyadoo intaas oo dhan ay jirto oo 72 degmo oo kamid ah 84 degmo ee Soomaaliya ay ka kooban tahay abaartu ay saameysay ka jirtaa intaas oo dhan iyadoo la og yahay oo 6 degmo oo kamid ah deertaan ay buuxiyeen shuruudihii ama wixii loogu aqoonsan lahaa inay tahay macluul ay buuxiyeen ayaa ayadana arintaas ayada jirto gargaarka la helay waa 8% ayuu gaarsiisan yahay hadeertaan sida ay noo sheegeen qaramada midoobay hay'adaha howlahan ku howlan waxa ay dalbadeen waa 1 bilyan 400 kun oo dollar in looga jawaabo gurmadka asaga ah iyo abaartaas ayada ah ilaa hadda waxay hayaan wax gaaraya 58 milyan amal ayaa soo gaartay noo sheegeen intaas waxa dheer in dalka sanad iyo bar uu ku jiray doorasho oo dadku ay ku mashquulsanaayeen arrimaha doorashooyinka oo aan laga mashquulay in laga jawaabo gurmadkii abaaraha in laga jawaabo taas waxay keentay marka in dadkii tabaaleysnaa abaaraha waxyeeleeyeen in cid u gurmata ama cid gacan siisaa oo aad u weyn aysan jirinin waxa kale oo ayadana jirta adduunka oo naga mashquulay runtii oo nooga mashquulay ama dhibaatada ka jirta Ukraine ama dhibaatadii hore oo keenay COVID-19ka ama meelo kale oo abaara sidan loo kala anaga naga horeeyay ay ka jireen oo Yemen iyo Afghanistan iyo ay kamid yihiin iyo Syria iyo wixii lamida iyo sicir bararka ay keenay la socotaan oo adduunka qamadii ugu weyn meelaha laga keenay wuxuu ahaa Ruushka iyo Ukraine in ayaga dagaal ka socdo oo dawlad kasta ay go'aan ku gaartay inay waxay raashin haysta ay keedsato aysan iska bixinin oo hadeertan xataa adag tahay marinadii raashinka ku imaalaha inaan la haysanin iyadoo xaaladaas ay jirto oo laga mashquulay abaarihii ayaa waxaa muuqata runtii in dadaalka ku wajahan in gurmadkaas la aad u yar yahay shaqada aan rabo marka xafiiskay inuu qabtay in cadaato waxa waaye inaan abaabul galno oo dhaqaale raadin ah oo ilaahay iyo adduunka kale Soomaali aan u soo tuugno iyo shacabka Soomaaliyeed intaba aan u barino inay dadkooda ay gargaaraan waxa la yiraahdaa waa mobilization ama abaabul ku aadan fundraising iyo dhaqaale in la raadiyo iyo coordination wax la yiraahdo oo la xiriiriyo dadka hawsha wada haayo inaan xiriirino shaqadayda badar qaybin ma aha dad badan ay soo wacay igu yimid inaan deegaanadooda mucaawino gaarsiyo aan badar aan gaarsiyo waxaan uga cudur daaranayaa shaqadayda badar qaybin kuma jirto mucaawino kuma jirto inaan meel gaarsiyo shaqadayda waa inaan anoo magaca dawladda iyo kayga isticmaalaya aan dadka Soomaaliyeed ugu raadiyo inay deeq helaan deeqaasna la xiriiriyo si ay ku gaari lahaayeen deegaanadii iyo dadkii tabaaleysnaa iyo saddexaad oo ah haday jiraan caqabado dawladda dhexdeeda ah ama hay'adaha dawladda ah ama shirkadaha kala duwan ee maamula airportka ama garoonka diyaaradaha ama dekada maamula haday jiraan caqabado ay kala kulmayaan dadka deeqda bixinaya inaan fududeyno ayadaasna waaye shaqada aan runtii inaan qabto aniga aan u taaganahay hadeertaan waa shaqo aad u weyn aan ka codsanayo kulna hadda ka soo baxay bahda media aan la lahaa agaasimayaasha warbaahinta iyo kuwa hortaagan ba hadeerta arintaas inaad gacan naga siisaan waxa ugu daran waxay tahay
dadku inaysan ogeyn in dalka abaar ka jirto waa ogtiina xafladaha socdo oo meel walba loo dabaaldegayo doorashadii natiijadeedii waa fiican tahay in la dabaaldego oo doorashadii si nabada noogu dhacday oo xukunkii si nabad aan kula kala wareegnay laakiin walaalayaalow dadka gudaha iyo dibadda jooga dabaaldega u wareejiya dadka masaakiinta in la taakuleeyo qarashka aad ku bixinaysaan xafladaha iyo soo dhoweynada iyo dabaaldega aan u wareejinno inaan ku bixinno inaan kaalmayno dadka dhimanaya dadkeena waxay bilaabeen inay dhintaan haddeertaan dhimashada way bilaabatay macluushii deegaanada qaar ay lugaha la gashay inay isku beddesho macluul abaartii saas daraaddeed dadka Soomaaliyeed guud iyo dibad meelay joogaan waxaan rabnaa inay mas'uuliyaddaas ugu gacan siiyaan waxaan rabnaa dadkiina inay u gurmadkaan kuwiina dibadda jooga 37 boqolkiiba GPD-ga Soomaaliya wuxuu ka yimaadaa dadka diaspora ee dibadda jira walaalayaalow dadkiina inay caawisaan oo abaabulkiina lagu yaqaanay gurmadkiina lagu yaqaanay isku gargaarkiina lagu yaqaanay inaan waxaan rabnaa aan isku istaagno waxaan halkaa uga baaqiyaa hay'adaha dawladda oo kala duwan iyo shirkadaha serviceka qabta private-ka ah inay fududeeyaan dadka in la gaarsiiyo macaawanada konton beri ka badan yaa macaawino ay dawladda qadar keentay ee laboor ku xayiranta oo aynan meel sabab ay u xayiran tahay in la aqoonin sababta ay tahay ama shirkadda airportka maamusho dhibaatada ka timaado ama hay'adaha kala duwan ee dawladda ka yimaadaan waxa in la sii daayo waaye mucaawinada dadka loo keeno waxay ii sheegeen qaramada midoobay inay raashinka ay keenaan ay ku qaadato waqtiyo badan in dekada laga dejiyo in kira laga qaado aad qaali u ah meesha ay ku xareeyaan inay gaarsii karin dadkii ay caqabada ay jiraan media ama warbaahinta waxaan ka codsanayaa wacyigelinta ka sokow in accountability qayb ka noqotaan oo aad daba gashaan cidda caqabada ku ah gargaar in la gaarsiiyo waa run dadka laba nooc isugu jiraan kuwa laga yaabo inay rabaan inay ka faa'iideystaan gargaarkaas dadka masaakiinta looga keenay oo si xun uga faa'iideystaan iyo kuwa isla ilaaliya oo ilaalintaas intay la dheeraato wixiiba ay gacantooda ay ku halaabaan ay ku dhintaan raashinkii qaarkeed ee gargaarka loo keenay bilaa soo socod inuu dhacayaa naloo sheegay welina uu baqaaro ku jiro saas daraaddeed waxaan ka codsanayaa hay'adaha dawladda iyo shirkadaha maamula garoonka diyaaradaha ee dekadda inaysan wax faa'iidaa ka raadinin ama wax dana aysan ka raadinin gargaarka mucaawanada la keenay ee la sii daayo dadka Soomaaliyeed markale waxaan ku celinayaa dhammaantiin inaan ka wada qayb qaadanno gurmadka abaaraha oo aan isku garab istaagno dal iyo dibadba oo aan iska joojinno waxa kale oo dhan waxa dhimanaya waa dadkiinii waa ehelkiinii ugu dambayntii waxaan rabaa inaan si wada jira dadka Soomaaliyeed iyo hoggaanka cusub ee dawladda iyo dawladda qaybaheeda kala duwanba maalin kasta kuma jiri karno marna inaan daad ka qaylinno marna inaan oon ka qaylinno inaan waxaan u baahannahay arrintaas aan ka yeelanno aragti saxa iyo vision saxa iyo si dadkan ugu soo noqon lahayn macluul iyo abaar annagoo webiyada ugu waaweyn haysanna badda adduunka ugu dheer haysanna xoolaha adduunka ugu badan haysanna malayga adduunka ugu badan haysanna dhulkeenna khayraad oo ka buuxo dadka ugu firfircoon geeska Afrika aan nahay oo xagga ganacsiga wax inaan maalin kasta marna abaar ka qaylino macluul ka qaylino marna aan ka qaylino biyo baxa iyo fatahaad waa nacasnimo waa runtii wax aan naqabanin waaye arrintaasna waxaan u baahanahay inaan meel uga soo wada jeesano mustaqbalka fog haddana midka degdega dadkeena aan caawino arrintaasna ku gacan siiyo madaxweynaha mar kale waa ku mahadsan yahay inuu mudnaanta koowaad siiyey arrinta abaaraha markuu arkay xajmigeeda inta uu la eg yahay waa ogtiino annaga siyaasad iyo doorasho iyo intikhaabaad iyo waxaas iskaga mashquulsanayn xajmigaas inuu arkay mudnaan uu siiyey oo aan rajaynaynana inay mudnaantaas ay noqoto midda koowaad oo meel kasta oo aan tagayno iyo meel kasta oo istaagayno arrintaas aan u soo wada jeedno waa mahadsantihiin shirkaas jaraa'id waxaan ugu talagalay in intaas briefingkaas aan ku bixiyo ama warbixintaas aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa ka soo qayb gasheen mar kale waxaan ka codsanayaa bahda warbaahinta midka taqliidiga telefishinada iyo raadiyaasha iyo midda aan taqliidiga ahayna social media oo ay ku jiraan TikTok oo ay kamid yihiin Facebookyada ay kamid yihiin Twitterada inaan wada istaagno dadkeena saan u caawi lahayn oo aan isugu gurma lahayn وتعاونوا على البر والتقوى إلهي سبحانه وتعالى dadkeena inay iscaawiyaan inaad walaalka iyo walaasha badbaadiso intii aan la buddhigin oo aanan ilka la dhigin ayaa ka muhiimsan hadhowda inaan tacsidooda aan ku calaacalno ama dhimashadooda aan ka shalayno waa maasantii wassalaamu calaykum waraxmatullahi